السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشين حمد الشكر إنك جاي معنا حمد الناتشرالز وحنا ليه يسود وهذا مرلبات يمر صدحات با ما شاء الله ما توم حكوسي سعونا البرنامج كي أنك هذا النبابة سيركا نا واكرا بيها إنه ينتي أنكسو قرينا يجيب كان يترودين تسي أنكسو بي على ده ململكي iyo bihi aan ku soo gareeyay ama la dhigay ama ku radiyay laba cashay ku jireen ma sha Allah horta maxaa u baahanahay in baabasiirka maxaa keenay maxaa qoos gareey horena waa uga hadlay calooshaada fadhida cuntooyinka qaarkood waa inaad ka fogaataa cuntooyinka macmacaan sida xalwada iyo waxyaalaha iyo shaah iyo karaakaris iyo waxyaalaha macmacaan oo dhan chips waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha caloosha fariisiya marka kuwaas ka fogow markastana qudaarta badso qudaarta ay noocaad waxyaalaha fiberka aad ka helayso waxa laga baahanyahay inaad also aad badsatid marka wayn u guda galaynaa biyaheeni marka waxa laga baahanyahay waxyaalaha fiberka ku jira sida sheegayba inaad badsatid sida broccoli-ga ay qudaar oo dhan you name it wax kasto qudaara fiberka iyo cuntooyinka madmadow cuntooyinka baal kale digir haruur waxaas oo dhan inaad badsato hal mid oo kale idin sheegaya oo aan idinka ilaaway oo aan loo baahan yahay inuu qofku ka taxadaro suuliga markaad ku fadhido inaad muddo dheer ku fariisataa waxay soo xiidmaha maxal dhahaa dabada ayay dhiiga ku soo shubaysaa marka way soo nuugaysaa sida marka waxa ku soo baxaya xagga dambe waxa ka soo baxaya inay nafro soo yeelato oo drainage ay soo noqoto ay noqonaysaa marka ka dadaal markaad xaajadaada gudatid durbadaba ka soo bax ha u macaansanin qofka himi rooriska qaba ama baabasiirka qaba markastaba wuxuu jecel yahay inuu suuliga wax badan ku fadhiyo marka ka dadaal marka waa kana ma sha Allah maanta dhawto u jeedeen inaan meeshan ku soo gareynayay laba cashuur radsanaa malmalkii wakaasa dhagxii wuu jilcay biyahan horta ka shaqanaya biyahani aad bay muhiim u yihiin laba cashay sadsanaaye aad bay muhiim u yihiin wax kale ku qabsanaya insha Allah marka waa kuwaas labada dhagax ku udgoonkeeda waad ka yaabaysaa marka waa u jeedaan Soomaha suu u jilicsan yahay ya ka outside marka la treat gareynaysid baabasiirka banaanka ku yaala oo soo baxay iyo aagaas oo dhan markuu ku cuncunayo oo cuncun ku jiro waad qaadanaysaa tiish qaadan lahayd araasaan oo kale maxay ahayd cotton ball waxa doontid cudbi whatever you can adigu aad heli karto markaas aad qaadanaysaa effect area oo dhan ayaad soo masaxaysaa ama meesha maaragtay la saameeyay meesha uu saameeyay marka ma sha Allah waa kana tani way weentay meel ana dhiganaya dan leeyahay intan yar baan idin ku tusay marka saan oo kale ka soo qaad maaragtay meeshii effectiga ahayd ee baabasiirku ka soo baxaynaysaa tahay waad ku xoqaysaa qofka baabasiirka qabay uu garanaya waa guarantee weeyaan dadkii uu kaga buskooday baa la hayaa ma sha Allah marka saasad ugu xoqaysaa oo aad ku daynaysaa daawada iyo waxa dhan waad ku daynaysaa malmalkii saas u saarin ya waa dareemaysaa qofka xataa marka adigu meesha uu baabasiirku saameeyay oo banaanka kana aynu hadda daaweynayna waa mid kala dhaho inside maaha waa kii outside ka ahaa banaanka u soo baxsanaa marka iyo aaga cuncunayo oo dhan because virus iyo bacteria wata iyo aaga bacteriada oo dhan malmalku wuxuu isaguna dilaa wax kasta oo bacteria inflammation haday tahay waxaas oo dhan ayuu marka ma sha Allah easy way saasad sameynaysaa aaga effect area u marinaysaa بإذن الله وتكون بسكونيسان dadkii ku biskoodayna waa la hayaa sanadii sheegaba insha Allah waxaan leeyahay iswada gaarsiiya hopefully it will help بإذن الله bari and gaarsiiya anagana subscribe ka iyo support ka waa dankiina بإذن الله bari waxaan leenahay saas iyo nabadgelyo waan jecelnahay waxaan idinkaga mahadcelinaa la joogitaankiina maaragtay dhiirigelintiina everything ajalkani waa ajalkii labaad oo aan hadda ka sameeyo codsigiini horeyna kuwa bilooyinka hore ka hor aan malmalka ka duubay oo waliba baabasiirka iyo infectionka iyo waxa soo dhan ka hadlayay waxaan leeyahay meesh kasta joogtaan ciifsi iyo sharaf ku noolaada. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.